بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة ديال كسر دوادا برنامج gaar ah oo hadlay inoo muqlo tahay in burburkooda ay sii horseedayso in isugaarsiga iyo dilalka ay dhexdooda isku hayaan kooxda al-shabaab. barnaamijkan waxaa marti u ah oo igala qaybgalaya cali cabdiqaadir faarax iyo cali jimcaale cali iyo cabdikaafi maxamuud makaraan iyo cabdikariim xuseen ibraahim. heebda CCD ayaa soo qabanqaabisay barnaamijkan TV qarankan halkan ay kula socodsiinayaan kusoo dhawaada dhammaantiin barnaamijkan. su-aasha ugu horeysa makaraan ayaa weydiinaya makaraan kula tahay in burburkooda ay sii horseedayso kooxda al-shabaab mar haddii ay isugaarsanayaan iyaga dhexdooda. waa maadsantahay yaxye dhammaan asxaabteedana u mahadcelinayaa barnaamijka igala qaybgalayo. haddii la fiiriyo su-aashan ah in burburka ay usii horseedayso al-shabaab dhexdooda haddii bay is-ugaarsanayaan waa sax. hadda caqiidada keliya oo u taagana waxay tahay inay baabuur amba wax soo saaraan amba qaraxyada reer sameeyaan sababtoo ayaga dhexdooda ayaaba is-ugaarsanayaan. taasna waxay caddeeyay asalba inay ku heshiiyeen xaqdaro inay dad bini aadan dilaan ama dad muslim inay dilaan amba inay nin Soomaali oo muslim inay gaalo dhahaan. marka waxaa keeni karto ewlora fikirka ay ku heshiiyeen waxa ay fikir qaldan. marka waxaa dhigi karnaa anaga horta rumaantii waa ku faraxsanahay isdilkooda iyo burburkooda sababtoo anaga wadankeena Soomaaliya oo dhisan ay waxay ku fikireen inay burburiyaan. marka anaga waxaa dhigi karnaa barnaamijkaas oo ah inay ayaga dhexdooda is-ugaarsadaan rumaantii farxad ay noo tahay maadaama ay ahaayeen cadow soo duulay oo dalkan usoo duulay fikir qaldanna haystay fikirana haysta shisheeye. anaga waxay noo tahay dhigi karnaa guul. waa tahay waa mahadsantaa kusoo laaban doonaa. waxaan siinayaa markan cabdikariim xuseen ibraahim aan siinaya. cabdikariim kaalin intee la-eg ayay dhalinyarada ka qaadan karaan dabargoynta haraadiga kooxda al-shabaab? waa mahadsantahay. haddaa marka hore waxaa salaamaya kheyrta meesha la fadhiyo oo saaxiibayada dabargoynta waxaa loo hadda sida dhalinyarada sababtoo ah markasta dadka lagu shaqaysanayo ama dadka lagu adeegsanayo dabargoyntoodana waxaa dabargoyn kara dhalinyarada sida hadda aan hay-adaha amniga sida ula shaqeyno haddaa markasta si fiican ee dhalinyarada ugula shaqeeyaan dabargoyntooda waa soo afjarnamaan dhalinyarada meel kasta dadka loo horseedaya waa dhalinyaro. maanta hadda dhalinyaro haddaanana waxaa diyaar u nahnay inaan la shaqeyno hay-adaha ammaanka si u dabar go-aan. waa tahay waa mahadsantahay. cali cabdiqaadir faarax ayaa siinaya cali sidee uga faa'iidaysan karaan maleeshiyada al-shabaab lacagta la dul dhigay horjoogayaashooda sidee uga faa'iidaysan karaan? yaxay waa mahadsan tahay. waxaan salaamayaa dhammaan asxaabta igala qaybgalaysa barnaamijka. nimankan al-shabaabka lagu leeyahay waxay ahaayeen urur ka dhisan gudaha Soomaaliya oo xiriir la leh ururo kale oo caalami sida al-qaacido kale. al-qaacidadii waa weyneed burburtay ayaga waxaa ku dhacay marka dhaqaale la-aan. dhalinyaradu marka haddii ay waayaan dhulkii gaabkii ballaarnaa oo dalka Soomaaliya ka haysteenna waa la soo koobo dowladda soo aroorisay oo degmooyin dhowr ah lagu soo ekeeyay. sidaan ognahay goobihii dekedaha iyo airboorada lahayd waa laga soo qaaday oo dhaqaalaha ka soo geli jireen. dhaqaale la-aantaas waxay sababaysaa marka in dhalinyaradu ay isku dayaan inay hogaamiyaashooda haddii ay dowladdu lacag dul dhigtay iyo caalamku ay lacag dul dhigeen nimankaas inay ayaga ka faa'iidaystaan oo ay sheegaan goobaha ay ku jiraan wayna ka faa'iidaysan karaan. ninka haddii uu wax waayo oo dhaqaalihii uu ku xisaabtami jira waayo wuxuu isku dayaa inuu dhaqaalo abuuro. dhaqaalo abuurkii wuxuu kusoo haray marka 4 degmo 5 degmo ay ku hareen nimanka waa kooban yihiin. maanta degmadan uu joogaa beri degmadaas u socdaa sida dhacdana waa aragtaa hogaamiye degmo ka tagay oo degmo kale u socda oo diyaaradaha droniska ay duqeeyeen ya waa aragteen. marka waa ka faa'iidaysan karaan dhalinyaradaas maleeshiyada al-shabaab waa ka faa'iidaysan karaan nimankaas dhaqaalaha dul dhigay. waa tahay cali jimcaale siinaya markan. cali ma haysaan fikir iyo talo aada uga hortegaysaan marin habaabinta al-shabaab ay ku hayso dhalinyaradana Soomaaliyeed? waa mahadsantahay adiga iyo asxaabteyda barnaamijka igala qaybgalayso. runtii fikir iyo talo aan uga hortegayno marin habaabinta lagu hayo dhalinyarada Soomaaliyeed waan haynaa. runtii waxaan isleeyahay aniga fikirka aan isleeyahay ugu wanaagsan ee dhalinyaradaas marin habaabiyey aan usoo jeedin karna ama aan ugu hortegi karno kuwa kale hadda la maraamarada oo kale in wacyigelin badan la sameeyo dhalinyarada la fahamsiiyo diinta. dadkan dhalinyarada diinta ay ku qaldeen haddii diinta si toos ah dhalinyarada loo baro ama yani wax laga fahamsiiyo waxay la tahay aniga inaan si fiican loo hortegi karo cidna aysan qaldi karin. ujeedada ugu weyn
dhalinyaradaas ay ku marhabaabiyaan inay u sheegaan diinta oo kale sida jihaad, laakiin dhalinyarada haddii wax laga fahamsiiyo jihaadka iyo arrimaha ku saabsan waxay la tahay in oo wax badan laga bedeli karo. waa baxsan tahay markana su-aasha makaran ayaan siinayaa. makaran dhalinyarada door ay ayay ka qaadan karaan kacdoonka dalka ka bilowday ee lagu soo horjeedo guud ahaanba kooxda al-shabaab? bismillahi raxmaan raxiim. haddii aan su-aashaas ka jawaabo, doorka ay dhalinyarada qaadan karaan kacdoonka looga soo horjeeda al-shabaab runaantii waa ballaaran yahay. dhalinyaradana waa muhiim inay iska qabtaan cadowga soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed. waxay ka qaadan karaan, doorka ay ka qaadan karaan waxaa ka mid ah kacdoonka in horta hore xogtooda iyo sirahooda dhan in banaanka la keeno sida ay hadda ula shaqeeyaan dhalinyarada. midda kale hadda waxaan ognahay gobollada qaarkood in laga baxshay kooxahan ugus, taasna waxaa waaye ilaahay maadiis waaye, sababtoo waxay ku imaaday kacdoonkaasay ku imaaday. hadda waxaan ognahay nin shabaab ah inaan cabsi laga qabin, in yani in la sheego sheegitaankiisa inaan cabsi laga qabin. iloorna waxaa dhici jirtay in ninka shabaabka aad ka cabsatid oo dhahayd moosaalku yaal ama marka hadda ilaahay maadiis waaye kacdoonkan uu bilowday, mana aha kacdoonka inuu joogsan doono. harayga iyo firxadka soo harana insha allah tacaala waxa waaye god walbay galaan waa laga soo saarayaa. waa tahay cabdikariin qaabkee u dhiirin gelin kartaan dhalinyarada doonaysa inay kasoo baxaan kooxda al-shabaab ama aad gacan ugu sii kartaan inay kasoo baxaan ururkaas? waasanta waan qaab waxaan ku sii karnaa oo fiican, sababtoo ah haddii wiilka dhalinyarada oo kasoo tegayo kooxdaas ugus oo maanta si fiican kan kiiba kii kasoo horeeya si fiican haddii loogu soo dhaweeyo waxaan umalayn karnaa inaan dhammaantood kullikooda keeni karno, aan kusoo dhaweyn karnana gacan furan. wacyigelin badan haddaan u sameyno oo culumudiinka soomaaliyeed oo markasta la horgeeyo wacyigelin loo sameynayo qayb fiican ay waa tahay waa mastahay. cali cabdiqaadir farac ayaa siinaya markana. cali, maxay tahay sababta dhallinyaradeena loogu adeegsanayo qaraxyada maadaama iyagu ay yihiin dadka ugu badan ee lagu dhibaateeyo shacabka ama dhibaatooyinka u geysta? sababtaas waxaan dhihi karnaa waa laba arrimood. labadaas arrimood waa mid waxbarasho la-aantii ku dhacday dalka. dhalinyarada inta badan waxbarasho la-aana ku dhacday markii dagaaladii sokeeye dalka ka dilaaceen. dhalinyaro badan oo xilligii waxbarashada ku jirto aa waxbarashadii weysay. qofka markuu jahli yahayna naar xitaa madax waa loo gelin karaa. midda labaad waxay tahay iyadana waxaa sababay burburkii dagaaladii sokeeyaa sababay. waxa waaye dhaqaale la-aan. dhalinyaradii aan wax camal haynin, wax dhaqaale ay soo gelayn. ninka marka u baahda marka baktiga oo xalaala. qofku markuu gaajaysan yahay oo bilmithaal ninka dhalinyarada oo asagoo aanan wax baranin shaqana aan ahayn shahawaadka inta gubaan naa guursado oo ilaahay owlaad siiyo 2 3 oo ilmihii ay maanta ka baahan yihiin, haddii la qabto la yidhahdo warkaalay nidaamkaanaa jiro, nidaamka jiro loo sheegayana oon aqoon u lahayn oo jahli yahay oo iska qaadana nidaamkii. haddana la yidhaahdo nidaamkan waxaa ku helaysaa dhaqaalahaas oo ilmahaaga iyo xaaskaaga iyo ku badbaadin kartaa, hore badda isugu tuura. waxaa arkaysaa oo sida dalalka qaar afrika oo kale ka dhaca nin labadiisa kaliyood mid iibsanayo. waxaa ku kalifa waxaa waay weliba dalalkaasi waxbarashay leeyihiin. ninkaas waxaa laga yaabaa inuu oo master degree yahay, isagoo wax bartay oo wixii uu barto shaqo ku weynaa. waxay ku kalifaysaa danta inuu kili gala. marka annaga marka heerkaas ma lihin oo iimaankii islaamnimada noo diidayo in jirkeena qayb kamid aan gadno. waxaa marka nalagu kalifaya in nalagu qalqaaliyo nidaamkan, nalagaga dhaadhiciyo gaajada, nalagaga faaidaysto, nalagu meel mariyo. haddana labadaas arrimood aan dhihi karaa marka waa sababta dhalinyarada loogu adeegsanayo dhibaatada. waa tahay waa mahadsan tahay. markaana waxaa siinaya cali siinaya. cali, door caynkee ah ay dhalinyarada soomaaliyeed ka qaadan karaan horumarka iyo nabadda dalka soomaaliya? waa mahadsan tahay. dhalinyarada horumarka iyo nabadda dalkan door wanaagsan ay ka qaadan karaan. maxaa yeelay waddankan marka taariikhdiisa dib loo eego 13 dhalinyaro ah ayaa xornimadiisa loo aaneeyaa. dhalinyarada maanta jirtane kuwii hore way ku horumarsan yihiin. sidaa la socoto marka xilligaas waddanka tiknolojiyad iyo teleefano iyo aalado la iskula xiriira si haddoo kale marhayn. laakiin hadda waxaa aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed dal iyo dibadba inay si fudud iskula xiriir karaan. wayna ka fududahay shalay yani haddii 13 dhalinyaro aan haysan isgaarsiin iyo inay waxyaaba ay iskula xiriiraan
waddankan ay dhibaatadii iyo gumeysigii ay ka saareen ay ka xoreeyeen maanta dhalinyaradan horumarka gaarsiisan aqoonta leh wax walbana haysto dowladoodan garabka helayo inay niman yacni oo gacan ku gambada oo gambanayo inay waddankooda ka sifeeyaan ama horumarka waddankooda ay ka shaqeeyaan aaday u fududahay taas waxaa lagu gaari karaa in dhalinyarada ay ayaga iskaashadaan marka hore in yani ay ka wada shaqeeyaan ama ay ogaadaan inay waddankan ayaga horumarin karaan waddan walba dhalinyaradiisa horumariso dhalinyaradan waa lafdhabarka waddan walba marka dhalinyarada haddii ay la fahamsiiyo in waddankan ayaga ay leeyihiin mustaqbalka berina ay ayaga yihiin runtii waa fudaanaysaa inay ka qayb qaataan horumarka dalka uu leeyahay waa tahay waa master cali makaraan ayaan siinaya markaan makaraan sidee u aragtaan dalabka daacish ee ah in ay kusoo biiraan ama ay ku dalbanayeen inay kusoo biiraan ururka al-shabaab wallaahi yaxya waa mahadsan tahay annaga aragti ahaan waxaa qabnaa maadaama oo shabaab iyo alqaacida tahay taasna waxaan u aragnaa daacish inay alqaacida tahay sababto hadda awood kale hadda oo al-shabaab wax ku qaban karta ma laha danta marka waxay ku kalifay si ay dhaqaalo u hesho inay ku biiraan daacish taasna waxaa keeni karto dhaqaalihii oo ka dhammaaday iyo meelihii taageerada iyo caawinaadda ay ka helayeen oo soo afjarmay marka taas waxaa aaminsanahay aan dhihi karnaa awoodda al-shabaab oo si yaraa hayso marka taasna waxay naqahe kulleeto waxaa umaleehaa inayna ku guulaysan doonin suurtagal ma tahay haddii ay ku biiraan in ay sii bartaan dhibaatooyinka ay shacabka ku hayaan maadaama daacish la ogyahay ama la yaqaano dhibaatooyinka hadda ay sameeyaan waa la ogyahay laakiin awoodda hadda iyo hawsha hadda soomaaliya ka socoto ilmahan aniga inay awood zaa'id inay keeni doonaan sababtoo dalka soomaaliya bad iyo ilboor oo leeyahay haddii xoogga la saaro labadaas meel ilmaha marka in oo hadda oo dhaqaalo ambi kale oo awood ay heli karaan shabaab daacishna ay kusoo biiri karto marka taas waxaa aaminsanahay sidii hore su-aasha hore ii sheegtay kacdoonka kale in looga faa'iidaysto harayga hadda hare oo farxadkane sidii lagu ciribtiri lahay oo insha allah tacaala bilaha soo socda oo lagu dadaalo waata cabdikariim dhalinyarada iyo laamaha ammaanka sidee isaga kaashan karaan in sharciga la horkeeyo ama la horkeeno haraadiga ama maleeshiyaadka farakutiriska al-shabaab mahadsan tahay laamaha ammaanka maanta waxaad dareemi kartaa in la dheeyo qof hebel haddii la keeno intaas waa ko dul saaran maanta qofka oo hebel qari jirtay oo isdhihi jirtay ninkan qari maanta ma qari karto sababtoo waxay heli dhaqaalo sababtoo ninka dhalinyarada ana wax haysanin maanta haddoo nin shabaab meelku ogaa jiray maanta laamaha ammaanka waa horkeenayo sababtoo ah xag dhaqaaloo rabaa dhaqaalan markii anuga soomaali haddaan aanan dhalinyarada xagga haddii dhaqaalo noola sheego dabkan ku dhaca haddii la leexataa inaan ku dhacayna umaleynaa marka waxaan isdhihi karaa in laamaha ammaanka iyo nimankaas in la horkeeno sababtoo ah waxaan codsi ujeedi lahayne in markii la keeno nin kasta oo qalad ka gala waddanka oo sida ugus camal ah in sharciga si fiican si wanaagsan loo horkeeno sida oo hadda aad dareemi karto dhibkan hadda wax badanunu haystay al-shabaab maalin kasta dad ay magaalada ku dili jireen wixii looga oo joojiyana xitaa markii nin kasta wuxuu sameeyo lagu sameynayo qofkii qof dilo markii la dilayo hadda waad dareemi kartaa magaalada inay xasiloonaato laamaha ammaanka iyo sharcigana waxaa leelahay in lasii dardar geliyo lasii xoojiyo cali cabdiqaadir faarax ayaa sidayaa cali xagee bay kula tahay inay nooga timid fikirka xagjirnimada ee lagu qaldayo dhalinyarada soomaaliyeed ee al-shabaab ay wataan yahay waa mahadsan tahay marka hore su-aashayda usoo laabanaa su-aasha saaxiibkeena dabagala cabdikariin laamaha amniga iyo dhalinyarada waxaa loo baahan yahay in laamaha amniga madaxdooda ay keenaan fikir dhalinyarada ay u dhex milmaayaan dhalinyarada sidaan ognahay markii meel dhibaato ka dhacdo waxaa yimaado hay-adaha amniga yimaado hay-adahaas amniga ninkii dhalinyaraha oo eridaas lagu arko way qabanayaan ayagoo ka dhex baadigoobayo dhagarqabihii dhibka geystay ayagoo ka baadigoobayo dhalinyaradii marka dhibay ku tahay waxaa arkaysaa mararka qaar in 400 500 oo dhalinyaro ah soon laga soo aruuriyey meel la isugu keenay ay xiran yihiin 24 saac iyo ka badan ninkii dambiilahana inuu fakada laga yaabo waxay ku wanaagsan tahay marka in la sameeyo kulamo ay ku kala war qaadanayaan hay-adaha amniga iyo dhalinyarada ay ku kala war qaadanayaan markii la helo waxaa meesha iska dhalanaya isbarasho dhalinyarada kuwooda qumanna waa la ogaanaa waa la baranaa
kalsooni hay-adihi amnigana dhalinyarada helayso sidaasna waxaa ka imaan kara wada shaqayn buuxdo oo dalka iyo dadka wax tarto taasaan ka leeyahay midda labaad oo su-aasha aniga ay weydiiso oo ah fakerka xaggee nooga yimid fakerkani culamaa udiinka ahlu sunna waxay sheegaan inuu 40 sano 50 sano ka hor dalkeena yimid oo maalinba maalin ka dambeysa uu soo koraayay ay ka digi jireen laakiin ay dadku ka diidi jireen ay ku faanaan culamaa udiinka ahlu sunna laakiin annaga waxaa isleenahay garaadkeena iyo da-deena markaa cabirno fakerkaa waxuu ka yimid dalalkaas afghanistan iyo dhinacaas inuu nooga yimid ayaga ahlu sunnaha mabda-ooda mabda aan ahayn oo al-itixaadiga oo kale waxay dhihi jireen fakerkan waay mararka qaar haddaa fakertana waxaa is leedahay ama fakeradan ay dhaleen kuwaan laakiin annaga markaan garaadkeena ka cabirno waxaan is leenahay afghanistan oo ka yimid nimankan madaxdooda qaarkood waxaa laleeyahay afghanistan oo lagu soo tababaray waxaan is leeyahay marka fakerka meelahaas oo ka yimid afghanistan waa tahay cali asiinaasna cali kacdoonka lagu soo horjeedo al-shabaab sidee loo xoojin karaa amaasintahay kacdoonka al-shabaab lagu soo horjeedo waxaa loo xoojin karaa yani in ummadda soomaaliyeed ay u midoobaan si ay ugu hortegi lahayn cadowgoodana qof kale maahan waa cadowga ummaddan baabi'iyey oo hooyo caruur waayeel xayawaan aan dhaafayn yani haddii si loo fiiriyane ummadda soomaaliyeed khaasatan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa nabad-sugidda haddii ay u midoobaan inay raggaas ay wax ka qabtaan ama ay sii dadaalaan waxay la tahay in wax walbaba ay wanaagsananayaan waa tahay su-aasha ugu dambeysa weydiinaya waxay tahay oo dhex dhigayo waddanku horumar ayuu imika ku tallaabsanayaa wax kastana waxaa lafdhabar ama hormuud ah dhalinyarada soomaaliyeed dhalinyaradu door ay kee la-eg ayay ku yeelan karaan in waddanku uu noqdo mid la qaybsadaa wadamada caalamka horumaray isla markaana heerkaas gaara makaran ayaan weydiinaya makaran he waa mahadsan tahay yaxye rumaantii waa su-aal muhiima dhalinyarada door muhiima ayay ka qaadan karaan waa haddii awoodda dowladda federaalka ah haddii awoodda iyo kalsoonida u qabto dhalinyarada ay xoojiso waxaa aaminsanahay dal walba waxaa lahaa dalkiisa waxaa hormaray dhalinyaro dhalinyaradana doorka ugu muhiimsan way ka qaadan karaan horumarka dalka iyo wax soo saarka waxaan sidaa ognahay soomaaliya hadda xiliyadii hore iyo xiliyadan sanadihii hore iyo sanadahan waxaa aaminsanahay sanadka inay ka qurux badan tahay horumar haddii la dhaana dowladda ay tilaabsatay tilaabsigaasna waxaa keenaa waxay tahay dhalinyarada dowladda hadda ugu badan 85% inay dhalinyaro u badan tahay marka waxaan ognahay fikirkan oo ah fikirka oo dhalinyarada ayagoo yacni oo dagaalana kusoo jireen waxbarashadoodana xooggala inayna helin waxaa aaminsanahay haddana inuu niyaddeeda fiyoodahay oo yacni dad dhiig cusub ay yahay taasna waxay caddeeyaya qofka hamuunka u qabo ama kale shaqada hawsha u qabo sababtoo waxaad dareemi kartaa xilliyada hore in qof waayeel ama qof adiga iska da weyn ah in hawsha shaqada loo dhiibtay 6 saac ama 7 saac 5 saac hadii la gaaro inuu inta caajis iska baxayo laakiin hadda waxaa ognahay ilaa 9 saac ilaa 10 saac inuu ninka dhalinyarada oo dowladda oo shaqada haayo oo ummadda Soomaaliyeed u shaqeeyahay inuu taagan yahay oona daalin oo isdhahayo bal inta kasii qab ilaa habeenkii uu gaarayso taasna waxaa aaminsanahay dhalinyarada haddii aaminaad iyo kalsoonida la siiyo haddii lasii xoojiyo dalkan horumar ayuu gaaraya waa tahay abdikali ku darsayo waayo waxaas dhihi karaa in oo dhalinyarada si fiican hadda sababtoo ah ebel dhalinyarada aad iyo aad ay shaqadooda u yareyd laakiin hadda dhalinyarada markii shaqada loo badiyo meel kasta oo nin dhalinyaro la geenayo waxaan codsan lahay aniga oo fikirkayga kusii darsan lahay aaminaadda si fiican in loo sii badiyay leh waxaan ku fikiraa makaraan fikirkayga waa intaas aniga waa tahay waa horta cali asiinaya cali haye dhalinyarada waa xoog waa baalka graderka beeraha iyo lagu falo waayo haddii laga faa'iidaysto dalka horumarkiisa qayb weyn ay ka qaadan karaan awal waxaana dhibi jirtay waxaana la dhihi jiray waxaad tihiin mustaqbalka berri waxaan arkaynaa maamul gobolka banaadir gudoomiyaasha dhalinyarada gudoomiyaasha degmooyinka wuxuu ka dhigay dhalinyaro agaasime waaxeedyada gobolka banaadir waa dhalinyaro waayo golaha wasiirada inta badan dhalinyaro waayo dhalinyarada waxaa moodaa in jaaniskeeda la siiyey dowladihii burburkii ka dambeeyay dalka ka dhashay dowladda ugu tayada wanaagsaneyn inay tan tahay walow oo baahi badan ay dadka sheeganayaan dadka gaajay ka sheegtaan dowladdan laakiin horumarka dowladiha ay soo sameeyeen
dowladda ugu horumarka wanaagsan waay waxaana sabab u ah dhallinyaradiiya tiirada looga dhigay dhallinyarada marka caalamka dhallinyara wax bedesho faransiiska waxaa maqlaya dhallinyarada markii la keenayo fikradahan in balooni ay dheelaan iyo ya mar walba isbuuc walba inta shiraan ay dowladda dalkaas ay isbedel ku samayn jireen waxaan hala bedelay dhihi jireen dhallinyarada waa la maaweeliyey marka annaga waxaan kusoo jirnay maaweeladaasaan kusoo jirnay muddo fara badan laakiin hadda inaan ka baxnaa muddaa oo dhallinyarada dowladda tiirada looga dhigay haddii sidaas lagu sii wado waxaan filaa madaxweyne 40 sano iyo ka yar inuu soo bixi doono doorashooyinka soo socda mahadsan tahay waa mahadsan tahay dhallinyarada horumarka oo dalka waxay u qayb qaadan karaa in la qaybgeliyo qofka dhallinyarada markii hool loo dhiibo markaa wuu wax qaban karaa waxay la tahay ninka saaxiibka sidoo sheegay hadalkiisa wuxuu dhahay dhallinyarada dowladda laga qayb dhigay aniga ma aaminsan taas dhallinyaradu banaanka fadhidaa ayadoo shahaadooyinka ugu dambeeyay wataan qaar oo PhD wata ay joogo haddana aanan shaqayn jaamacadihii dhameeyay haddana aan shaqayn laakiin qof kasta dowladda kama mid noqon karo dowladda waxaa loo baahan yahay marka inay sameyso shaqooyin u abuurto dhallinyaradan hadda oo shabaab lagu tilmaamayo waxay la tahay duruuf inay ugeysatay maanta qof dhallinyara tahay siduu saaxiibkii hore sheegay oo kale haddii aadan alyoomkaaga aadan helin hadduu qof kale ku imaado oo ku dhaho warkaale niyo maanta hawshaan ii qabo howlaan aadan ogeyn bacdaan madow ii qaad hana fiirinin $100 qaada duu ku dhaho inta ka qaad dukaan hebel geey waxay la tahay inaad qabanaysid because baahiya ku hayso laakiin haddii aad u baahnayn aadan lacag u baahnayn waxaa la weydiin maxaa ku jira lada bacdan maxaa ku jiro maxaa ku dhex jiro because muu baahnid haddii lacagtaas aa weysid laakiin lacagtaas aan weysid amarka lagu siiyo waxaa ku qasban tahay markaas inaad qaadatid bacdan ha furin qaad meeshaas geey waad qaadanaysaa aqoon walba aa leedahay laakiin haddii waddankan yani dhallinyarada shaqa loo yeelo shaqa loo abuuro qof walbo dhalinyaro maanta oo asi isku filan yahay ilmaha in la qaldi karo waxaan ogahay dhalinyaro yani la qalday laakiin lagu qalday dhaqaale dartiis sababtoo ah waxba ma haystaan asoo og fikirka loo sheegay inuu qaldan yahay oo haddana wuxuu taagan yahay waa saxsanta sheeko waa saxsan tahay because wuxuu rabaa inuu dhaqaale ku helo yani waxay la tahay tallaabada ugu wanaagsan oo amniga iyo waddankan iyo yani raggaas walaalaheena oo la qalday loogu soo celin karo inay tahay in waddankan dhaqaale loo abuuro dhalinyaradana shaqa loo abuuro qofka dhalinyarada oo 20 sano hooyadiis iyo aabihiis soo korinayn haddana haddii uusan haysanin wax shaqo ah oo waalidkiisa la soo koriyay oo hoos taagan yahay wax walba ka suurto marka waxaan isleeyahay dhalinyarada haddii oo shaqo loo abuuro waddankaani waa hagaagaya laakiin intii dhalinyarada baahan yihiin wax hagaagaya haddii aan beeraha qodanno ka waran oo badda ka kalluumaysano oo aan dowladna shaqo ka sugin yaa dowladda dadka ma wada qaadi karto oon beeraha qodanno adaa 2 hektar oo aan galley ku tacbado waxay iga fiican tahay mushaar dowladda siiso haddii aan doon iyo isa saarto iyo motor oo aan baddaas shabaab u qaato way iga fiican tahay dowladda caalamku ma raadiyaan marka ma raadiyaan in shaqo loo abuuro ma raadiyaan shaqada laakiin markii ay isku tarantaaraysa aniga hadda waxaan ka soo jeedaa gobolka hiiraan magaalada buulaburda aan ku dhashay oo awowgay iyo aabbahay iyo ku dhasheen waxaan ku leenahay dhul beereedyo haddii maanta aan jaakadkan iska tuuro aan dharkii hiddaha iyo dhaqankayga qaato oo webiga beerta tacbado ya waxaa laga yaabaa in berri yaxye iyo makaraan iyo cabdikariim iyo adiga iyo ay iisoo shaqo doonataan walaalo xoogaa nus hektar ama 2 hektar aan fashay si ay tiraadaan guntiga dhiisha aan ku haran taas waxaan kaa dhihi lahaa yani aniga magaaladan aan ku dhownay magaaladan aan joognaa beer iyo hektar iyo waxba kama naqaano waxaan noogu dhawaa badda inaan doon saarano waa saaran karnaa waxii maa shaqo waa ka raadin karnaa laakiin baddiyaaba lagu taagan yahay wallahi niyo adoo shangaani degan oo baddina ay kuu jirto 10 mitir inaad ka baahnaato aad u dhib badan dhibaatada ugu weyn jirta waxay tahay adiga ma ka fikiraysa dhibaatada dadka badda aado dhibaata haysta dadka dhulka beertane dhibaata haysta adiga ma dhul beerano ma bad aadno badda haddii aad gashid intaas oo mitir muu geli kartid meeshu malaayo joogo maraakiib waa inaad taagan biyo lagu shuba kulo dowlad ku doodayso oo ku daba taagan ama aad u dacwoon kartid ma haystid dhulka ku soo haray markii aad dhulka falatid oo beerta ay ku soo baxdo markii ay wax soo saarka waddanka uu soo baxay aragtid WFB loo markab oo galinayso taajinayso wallahi dhibkeeda waxaa soo saarta qiimo badan waa mahadsantiin aad waa mahadsantiin waa tahay daawadayaal guud ahaan taasi aan kusoo gabagabaynaynaa doodii aan uga hadlayna ma kula tahay in xukunkooda ay sii horseydayso is-ugaarsiga iyo deelka ay dhexdooda isku hayaan kooxda al-shabaab barnaamijkan waxaa igala qaybgelaya cali cabdiqaadir faarax iyo cali jumcaali cali iyo cabdikaafi maxamuud makaraan
iyo cabdikariin xuseen ibraahim dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin inta aanu barnaamijkan mid lamida dib u kulmi doono daawadayaal waxaanu ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu